iyo dadka xeeldheerayaasha Soomaaliyeed waxaan rabaa in la ilaaliyo madaxweynaha badqabkiisa. waa ogtihiin Soomaaliya dowladaha xurgufta kala dhaxayso waxay halis ku yihiin madaxweynaha Soomaaliya iyadoo runta markii laga hadlayo. waxaan rabaa inaan fariintaas dadka Soomaaliyeed ay baraarugsanaadaan, la ilaaliyo badqabka madaxweynaha insha Allah taala. badqabka madaxweynaha in la ilaaliyo waa dib haddii ay timaado dhibaato waxa waaye dib u dhac dowladnimo qarannimo waaye. saas darteed in la ilaaliyo badqabka madaxweynaha waa muhiimad aad u ballaaranay u leedahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed insha Allah taala. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.